Hey, assalamu alaikum. Dhammaan halkaan akhyaartaan ka wada soconno. Aad baan idin salaamayaa. Salaan qiimo badan oo sharfan baan idin salaamayaa. Wax badan ma raba inaan idin soo gudbiyo. Maalmaha waxa la hadalhayay oo dadku aad u hadalhayaan arrimo badan oo xasaasi ah oo siyaasado diidan iyo dagaal qaawan oo Puntland lagu hayo ay ka mid yihiin. waxaa gorgorta laga gali karin baa jira si kasta iyo xaalad kasta taasoo ah jiritaanka iyo muqaddasnimada dawladda Puntland. qof kasta oo isku daya weerar afka ah iyo mid kaleba inuu maaragtay adeegsado waxa uu jawaabaya wuxuu helayaa jawaab uu kala kulmi doono cawaaqib xumo. dalka Puntland ma jirto qof looga haybeysanayo in la difaaco waayo waa masiirkeeni waa meesha ku dhalanay waa dhulkeeni waa deegaankeeni isku duumni iyo wada jir ayaa lagu gaaraa horumar. anaga qolo wax noo soo yeeri karnaa jirin madax baan leenahay wixii siyaasadda madaxda uga dambeynaa. Puntland waxay soo martay dagaalo badan kuwa propaganda kuwa maxaan ku dhahaa lagu soo qaaday oo duulaan qaawana inta way ka jawaabtay. maanta ama dagaal social media soo qaada oo ciyaal lacag soo siiya ama wax kale isku daya halkan waa Puntland. lugta gareen oo kale kama heleysaan Puntland waxa ka heleysaan in hogaamiyo u daacada inuu dalkiisa iyo dadkiisa ku shaqeeyo waxa ay rabaan. jiritaankeenu waa mid masiiriya waa mid aan laga tashan karin waa mid gorgorta laga gali karin. haddii nagumeed cuqdad qabo isleeyahay Puntland waxa ku qaadaa dagaal adoo kaga faa'iideysanaya xilka ahaysid annagu waxaan leenahay nagumeed lama jaarjaarleynayno ummadeena iyo dalkeena iyo ma garanaysaa jiritaankeenuna waa mid annaga nagu ah muqaddasnimadayna waa ku taagan. marka bal waxaan leeyahay dadkiina kala balaykaadii ummadaha kale aan ka hadlayay dadkiina kale reer Puntland oo wadanka jooga maarada loola yahay wax ka maqan aysan jirin bal ma adeerayaal wax in ka maqan maxaa weeye dawlad baa leedihiin madax baa leedihiin dad sharfan baa tiin maxaa in ka yuyuusinaya yuyuuduna waa ceeb in la yuyuutamo dawladdaadana in la shaqeyso waa muqaddas. marka hadalka waynu ku badiyay aad iyo aad baan idin salaamayaa. talo walaalnimo weeye waa talo odaynimo weeye waa talo nin xogaala weeye wadankiisa iyo dalkiisa jecel weeye in badan wadankan u soo joogay dhibaatada iyo waxa uu soo maray. marka ismalihi maanta ninka wadanka hogaamiya madaxweynaha u ah madaxweynaha dawladda Puntland ninka iga xogaalsan inuu wadankan jiro maba jira isleeyahay ismalihi maaha maba jiraba. marka isaga ayay u taalaa maaragtay meesha dalkan uu jahaysameeyo talo wada jira way taladaasina waa talada. marka waxaan soo siinayaa odaynimo wadankeena taageera dawladdeena taageera gacmaha isqabsada hore loo soconayaa ilmaada riyaalo dadkiina ma garanaysaa horta bal qolooyinkaas ay halka ay dhigo kuwiina kale oo maaragtay jalo maarada loo waayay ilma adeerayaal oo hoos xaaladda u eega. marka aad iyo aad baan idin salaamayaa oday waa markii ugu horeysay weeyo fariimaha noocan oo kale aynu soo gudbinayo. aad baan idin salaamayaa qaranka hala difaaco dawladda hala difaaco Puntland ha noolaato.